janno aan gaajo lahayn, janno aan haraad lahayn, janno aan murugo lahayn ayuu nebi aadam ku noolaa calayhi salaam. wax walbana waa loo ogolaaday oo jannada yaallaa hal geed mooye. alla wuxuu yidhi geedkan ha u dhowaanina inay geedkaas cunaan. wuxuu ku odhan jiray aadamoo ma taqaanaa sababta geedkan laydinka reebay? waxaa laydinka reebay in aad noqotaan laba malag ama in aad weligiin jannada ku waaraysaan. fawaswasa lahuma ashayطaanu liyubdiya lahuma maa wuriya canhumaa waqaala maa nahaakumaa rabbukumaa alam anhakumaa can hadihi الshajara ilaa an takunaa malakayni aw takunaa min alkhaalidiin. nebiyullaahi aadam uu ka jeestay, laakiin shaydaan maquusan uu kusoo noqnoqon jiray. wuxuu u yimid xaawa wuxuuna ku yidhi haddii aad geedkan cuntaan weligiin jannada ka bixi maysaan. wuxuuna ugu dhaaran jiray inuu u naseexaynayo waqaasamahumaa innii lakumaa lamina annaasixiin. kadib xaawa ayaa nebi aadam ku tidhi aadamow bal aan tijaabino geedkan, waxaa laga yaabaa inaan jannada sii joogno. intaas kadib waxay bilaabeen in ay cunaan geedkii. gacantooda ayaa gaadhay geedkii laga mamnuucay, wayna cuneen. intaas kadib wax walba way isbedeleen. dharkoodii jannada ayaa dhacay, waxayna bilaabeen inay caleemaha isku daboolaan. watafiqaa yakhsifaani calayhimaa min waraqi aljanna. markaas ayuu alla ku yidhi miyaanan idinka reebin geedkaas? alam anhakumaa can hadihi الshajara waaqul lakumaa ina الshayطaana lakumaa caduwun mubiin. nebiyullaahi aadam uu ooyey, wuxuuna yidhi rabbiyow nafteenna ayaan dulminay. haddii aanad noo dembi dhaafin oo aanad noo naxariisan waxaan ka mid noqon doonaa daalimiinta. intaas kadib amarkii rabbi ayaa yimid, jannada ayaa laga soo saaray. nebi aadam calayhi salaam dhulka ayaa lagu soo dejiyey, xaawana meel kale. waxaa la sheegaa in nebi aadam lagu soo dejiyey hindiya, xaawana meel u dhow jidda. agagaarka kacbada ayay iskugu yimaadeen. intaas kadib waxaa bilaabmay safar adag, safar gaajo leh, safar daal leh, safar haraad leh, safar murugo leh, safar oohin leh. kadib maxaa dhacay markii ay ka soo baxeen jannada? fadlan channelka subscribe saar, like-na saar, siina sheergaree, dadkana u sheeg xikmaddu inay ku jirto qisooyinkuna inay yihiin hanuunkuna waa janno.